hay'adda dhowrista tayadu waxa weeye hay'ad la aasaasay 2010 xeerkeedana la ansixiyay 2014 xeerkeeda number 68 oo qeexaya qaabka hay'addu u shaqeynayso kaas oo golaha baarlamaanku ay ansixiyeen muhiimadda hay'addu qaranka u leedahayna waynu ogsoonahay shaqadeedu waxay ka kooban tahay hubinta ilaalinta iyo qeexidda heertayeedka aynu doonayno wixii agabahaynu isticmaalayno ee dalka soo gelaya lagu isticmaalayo ama gudihiisa lagu sameynayo in aanay ka hooseynin waayo waxaynu ogsoonahay shaygu markuu tayadiisu ay hooseyso ama uu muxuu ahaa shaygii soo gaadho muxuu ahaa waxyaabo caafimaadka waxyeelaya oo caafimaad darro keenaya in ay saameyn weyn ku yeelanayso noloshii bini'aadamka noloshii bulshada taas oo aynu u baahannahay inaynu ka hortagno aynu u baahannahay inaynu qaynuun iyo shuruuc ka yeelanno sida xeerkuba dhigayo aynu u baahannahay inaynu yeelano standard ama heertayeed wax lehda heertayeedkaasi markaa wuxuu qeexayaa ama jidaynayaa wixii allaaliyo wixii dalka laga isticmaalayay inuu yeesho heertayeed aan shaygaasi aanu ka hooseyn waxaynu ogsoonahay wadamada caalamka marka la eego Afrika khaasatan waa wadan duruufo badan ay jiraan oo muxuu ahaa waxyaabo badan oo caalamku aanu isticmaalin ama waxyaabo badan oo caalamka aan la ogolayn in Afrika ay ku soo qulqulaan dabcan inaguna muxuu ahaa dadkaas oo wax la qabnaa in badan baa muxuu ahaa laga cabanayay alaabo dhacday oo wadanka soo gashay alaabo lagu soo sameeyay oo laga soo been abuurtay ama wax la yiraahdo fake ama counterfeit la yiraahdo oo dalka gudihiisa soo geliyay waxaanu aad iyo aad ugu dadaalnaa inaanu muxuu ahaa alaabta aanu ka hortagno khaasatan meelaha imika shaqadeeda ugu badan aanu ka qabanno waxa weeye madaarka Cigaal International Airport ku yaala Hargeysa iyo dekedda marka muhiimad weyn waxaanu saarnaa khaasatan in xafiiskayga Berberi u shaqeeyo horena waanu muxuu ahaa hawlgal ballaaran baanu ka sameynay imikana waxaanu xoojinaynaa xafiiska ku xoojinaynaa haddii Ilaahay ka dhigo lab aanu rajaynaynaa in sanadkan aanu hirgelino haddii Ilaahay ka dhigo taas oo muxuu ahaa cid walba oo ka ganacsada muxuu ahaa dalka Somaliland laabkaas ay soo marayaan alaabtooda ay soo marinayaan khaasatan dawooyinka iyo raashinka iyo cosmetics ama waxyaabahan la isticmaalo ee shampoo kale saamuunta kale ee qofkii bini'aadamka toos u taabanayay halkan waa halka ugu badan wax ka soo degaan dekedda Berbera waxaanu mas'uul uga nahay qaranka inaanu baarno alaabta soo degaysa oo u eegno inay tahay alaab dadku cuni karaan iyo inaanay tahay qaar aan cuni karin haddii ay noqon weydo alaabtaasi ama la kulmi weydo waxyaabaha looga baahan yahay requirement looga baahan yahay hay'adda dhowrista tayadu waxay leedahay xeerar shuruuc bay leedahay kala gedisan haddii shuruucdaasi uu mid karin waayo ama uu la kulmi waayo ama uu buuxin waayo waanu joojinaa marka aanu joojinaa iyada waxay noqotaa in alaabtii la isla hubiyo oo ay noqoto wax macquul ah ama in la celiyo ama aanu gudno guud ahaan shaqada aanu qabanaa anagu marka uu noo imaado qofka customerka ama clientka ee doonaya waraaqda tayada waxaanu eegnaa waanu weydiinaa bal waraaqaha weysto dabadeedna wax laga register laga qoraa magaciisa oo saddexan shirkadda company-ga tirada uu doonayo waxa raaca qof inspector ah waxa loo taga alaabtii waa la furaa waayo container wax laga yaabaa inuu sito 100 container oo kale boqolka container laba saddex container baa la furayaa raan saama loo furayaa dad haddii wax isbedel lagu arki waayo wuxuu ka soo qorayaa markaa inspection formkaas soo buuxinaya formka waxa ku cadeynaya waxyaabaha uu ku soo arkay haddii wax isbedel ku arko alaabtaasi waa la yar hakinayaa waa loo furayaa haddii kale ay sax tahay oo wanaagsan yahay labada container wuxuu soo celinayaa isku soo noqda xafiiskii wixii la soo arkay resultkii bay soo gudbiyeen inta xogeynta baa loo keenaa inta dadna formka u buuxisa release formka siisa saas ay alaabtu ku socotaa ujeedadeeda ama muhiimadeeda ugu weyn ma aha inaanu ganacsigii dalka oo halkan lagu soo gaaray
oo muhiim u ah inaanu annagu muxuu ahaa ama aanu burburino ama aanu muxuu ahaa cadow u aragno. ganacsatada kala duwan ee dalka ka ganacsada waa soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaa, xiriir wanaagsanna wuu naga dhexeeyaa. inaanu xiriirkaas sii xoojinana waanu doonaynaa. muxuu ahaa hadday yihiin kuwa dalka muxuu ahaa alaabta keena iyo kuwa dalka gudihiisa ee wax soo saaray aynu samayno standard ama heer tayeed lagu hubinayo waxa ay soo saarayaan, loogu muxuu ahaa hagaajinayo ama hore loogu marinayo warshadaha dalka wax soo saara. taas oo iyagana aanu aad iyo aad uga mahad celinayno. ganacsatadeennu mar walba waxay nala garab taagan yihiin wixii tusaale iyo wixii toosinaya aanu mar walba soo jeedinayno. waxayna diyaar u yihiin waxoodaas inay noqdaan wax muxuu ahaa la hubo oo standard leh oo quality leh. iyagana waan uga mahad celinaynaa. wada shaqayn fiican oo buuxda ayaa naga dhaxaysa. ganacsatada khaldama ee wax khaladihi muxuu ahaa ka yimaadaanna anagu mar walba waanu u nasteexaynaynaa marka hore. mar labaad haddii wixii muxuu ahaa ay noqdaan wax muxuu ahaa dee ganacsatadii ka dhaga adeegaan, sharcigaanu mar walba adeegsan. sharciguna waanu shaqeeyaa. waanu la wadaagnay, imankana waa diyaar baanu la wadaagno in xeerka la wada akhriyo, waayo cid waloo ganacsataaba saamayn buu xeerku ku yeelanaya. marka insha allah waxaanu rajaynaynaa in hay-addani ay noqoto muxuu ahaa hay-adaha dawliga ah kuwa ugu shaqada badan, maadaama uu muhiimadeedu ay cid walba saameynayso oo miiska muxuu ahaa guri walba alaabta timaada ay noqoto alaab muxuu ahaa lasoo hubiyey, lasoo baadhay, lasoo xaqiijiyey in qofkii muxuu ahaa alaabta isticmaala aan wax dhebi kaga imanayn. waxaan rajaynaynaa ganacsatada iyo bulshada reer Somaliland inay hay'adan la shaqeeyaan oo soo dhaweeyaan, waayo cid walba waa wadan. qorshaha hiigsiga hay'adda dhowrista tayada ee sanadka 2020 ilaa 2024 oo ah muddo 5 sano ah waxa uu hay'adda siinayaa inay gudato waajibaadkeeda shaqo ee ay ka mid yihiin sameynta heertayada qaranka, baarista shayada wadanka gudihiisa laga soo saaro iyo kuwa wadanka loo soo dhoofiyaba, iyo sidoo kale inay dhiirigeliso ganacsiga si guud. qorshahan wuxuu soo maray jidad kala duwan. markii koowaad waxaan isweydiinay halkan marayno, kadibna waxaan isla tilmaamnay halkan u soconno, dabadeedna waxaan isweydiinay saan ku gaari doono halka aan u soconno. markii koowaad goboladan tashi aan ugu baxnay, markii labaadna hay'adaha dawliga ah iyo dadka kale aan wada shaqeyno ayaanu kala tashanay qorshaha kan. qorshahan hay'adda waxa uu suurto gelinayaa inay 2024 marka la gaaro ay noqoto mid awood u leh inay daboosho baahiyaha iyo waajibaadka uu siiyay sharciga hay'adda 8/2014. sidoo kale waa mid ku salaysan qorshaha labaad ee qaranka. sidoo kalena waxa uu waafaqsan yahay wadaagayaasha ay ka mid tahay hay'adda dhowrista tayadu ee la yiraahdo maamul wanaagga amba governance-ka. isagana istiraatiijiyadiisa ayuu waafaqsan yahay.